inaan gacan siino oo aan iscaawino oo dawladdu ay qayb weyn ka qaadato sida wadamada aan aragnay oo Yurub iyo Mareykanka ah dadka sababka ah waa la caawiyaa taasna waxay keentay dawladahaas in Ilaahay uu barakeeyo oo roob aan kala joogsan uu siiyo iyo barwaaqo marka saddexdaas arrimood waxaan ogahay waxyaabaha Soomaaliya sharafteeda hoos u dhigay haddaan ugu dhaqmin inay ahayd waxaan ognahay Soomaaliya adduunka meesha kaga jirto adduunka Soomaaliya waxay kaga jirtaa bacdama saddexdaas arrimood aan ignore gareynay annagoo dad Islaam ah waxaan kaga jirnaa adduunka at least 10 sano soo dhaafay dalku wuxuu adduunka aan ma oran karo iyo waxay yiraahdaan dalka ugu dulisan laakiin aan ku soo koobno dalka ugu xun macnaheedu waxay tahay waxaan naloo arkaa dad isxadaya iyagu ha ka bilaabato dadka dawladda ku jira ha ka bilaabato dadka shaqaalaha ah waxaan ogahay ganacsatadu waa fiican yihiin weli culture-koodii islaamka waa hayaan siyaasiyiintu marka waxaa la rabaa inay taas wax ka bartaan ninka ganacsiga ah ama ganacsadaha ah marka uu qofku wax ku darsanayo wuxuu ku darsanayaa qof aamin ah hadduu qofkaas hal mar khiyaamana magaalada ma soo galaya qofkaas waxay ahayd siyaasiga marka hal mar la arko inuu khiyaamay in siyaasadda laga saaro marka anigu waxaan ballan qaadayaa ammaanadaas aad ii dhiibateen oo kan amoolaha ah indhahala kan dhagahala ilmahaas aan dalan weli iyo kuwa hadda dhibaatoonaya oo qaxaya oo abaaruhu baabi'iyeen iyo qofka roob kulli ammaanadaas iyaga in ka wada dhexaysaa inaan u ilaaliyo ammaanadaas oo qof dawladda ku jira ama magac leh oo ognahay oo ummaddaas shilnay leeyihiin ka qaata waxaan ka ballan qaadaya inaysan dhici doonin arrinta labaad oo aan pledge-kayga ahayd oo aan ballanta ku qaaday oo dadka ugu taageeran waxaa ka mid ah cadaalad dalkan wuxuu la burburay oo colaadana noo haysataa oo qabyaaladda iyo shakiga lagu kala dhex jiray na gaarsiiyey waa cadaalad darro weyn wuxuu sheegay aadan barre ducaale wuxuu sheegay golihii wasiirada la magacaabay waa dhab weyn qof walba wuxuu rabaa inuu iska dhex arko waxaa laga yaaba qofkaas inuusan aqoonin laakiin uu raadinayo qof qabiilkiisa inuu ku dhex jiro waxaan idiin sheegayaa anaa ugu horeeyo madaxweyne ah anuu qabiil malihi Soomaali baan ahay Soomaali baa dooratay Soomaalida u dhaxeeya qof aan soo dhaweysanayo qabiil ku soo dhaweysanayo ma jiri doono qof aan qabiil ku fogeynayo ma jiraayo Prime Minister-ka markii aan magacaabay saddex arrimood iyaan ballan ku galnay midda koowaad waxay ahayd musuqmaasuq inaan ka fogaano midda labaadna waxay ahayd in maxaan ku yiraahdaa aan wada shaqeyno oo khilaafaadka iska ilaalino tan saddexaadna waxay ahayd in dadka iyo dalka aan u adeegno oo si daacada ugu adeegno macnaheedu waxay tahay isaguna qabiil ma laha qabiilna ka shaqeyn maayo maxaa yeelay wuxuu matalaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo matalaa waa sax qabiil baa sheeganaya laakiin waxaan kula taliyay isaga inuusan qabiil sheegan golaha wasiirada aan magacaabnay oo aan kulligeen taageerin ka rabno oo sidii aad yeesheen marka aad taageereyseen oo campaign ku jiray oo xibaanada u wacyigeliseen waxaan ka codsanayaa wasiiradaas waa sax qaabka aan wax ku qaybsanaa qabiil ah ilaahayna waa naga gudbin doonaa waxaan gaaraynaa meel aan uga gudubno oo axsaab aan u gudubno oo laba qof walaalaha ay kala tagaan intaan ka gaarayno waxaan ka codsanayaa intaas wasiirada waa la fariistay waxaan u sheegay qabiil ma masalan qabiil qofkii raba inuu qabiil masalo waa inuu noqdo kaaba qabiil haddii uu rabo inuu dawladdan ka mid noqdo wuxuu masalaa wasaaraddaas wuxuu u masalaa ummadda Soomaaliyeed saqiir kabiir marka idinka waxaan ka codsanayaa inaad xildhibaanada wacdaan haddii aad iska dhex weydaan ogaada wasiiradaas idinma matalaan qabiilkiina ma matalaan markii aan raadinayay Prime Minister yaan dad la hadlaayay kala duwan waxaan ku yiri qofkii hadda igu imaanaya inaan u magacaabo qof qabiilkiisa
waxaan ballan idinkaga qaadaya ninkaasaan magacaabi doono inuusan waxba idin tari doonin marka waxba hadda ha u loobagareenna qabiilkiina qofkaas wuxuu wax u tari doonaa soomaaliya waktigaas kaga luminina hadhow ha igu soo noqonina ha odhan ninkii waxba nama tarin maxaa yeelay mabda aan ku shaqeynaaba soomaalinimo ah marka wasiiraduna waa noocaas ku shaqayn maayaan mana qori doonaan xaqdarrana kuma qori doonaan qofna ma fogeyn doonaan oo aan qabiilkooda ahayn marka waxaan idinka codsanayaa inaad qof walba oo soomaaliya waa garan karaa maxaa yeelay weli xanuunkii waana hayaa 26 sano oo shakiga ahaa oo kalsooni darrada ahaa oo qofkii meel la geeyaba markiiba uu eriyaayo qofka ku qabiil ahayn markiiba uu kasoo buuxinayo dadkiisa wallaahi billahi insan dhicin anaa idiin sheegay hadday dhacdana ninkaas wasiir ummadda soomaaliya u noqon maayo marka qabiilkiis meel ha ka raadsado waxaan ballan qaaday oo kale markii lay doortay inaan shacabka la hadlo caleemisaadkii baan kula hadlay waxaan jeediyey warbixin dheer waan aan taabanaya meelaha kala duwan hadday noqoto arrimaha gudaha ee dhaqaalaha hadday noqoto ganacsiga hadday noqoto la dagaalanka argagixisada hadday noqoto arrimaha dibadda oo aan ku sheegay annagu waa ixtiraaminaa dowladaha dariska ah waa ixtiraaminaa caalamka iyaguna waxaan ka rabnaa sidaas oo kale inay na ixtiraamaan oo na tixgeliyaan oo nala shaqeeyaan speechkaas speech ballaaran oo ummadda soomaaliyeed aan kula hadlayo ahaa waxaan ballan qaaday inaan keeni doono ra-iisul wasaare hufan oo wanaagsan muddo 15 beri dhexdooda ah yaan ku magacaabay meesha dastuurku uu ii siinayo inaan ku magacaabo 30 casho runtii waa markii ugu horreysay intaan ogahay 15 casho gudaheeda lagu magacaabo ra-iisul wasaare isagana waxaan kula dardaarmay inuu 15 casho gudaheeda ku magacaabo golihiisa wasiirada laakiin qabiiladii baa dhibay marka waxay ku qaadatay 21 casho markaasaa waxa la leeyahay waa daahdeen maxaa yeelay madaxweynuhu wuxuu leeyahay 30 casho inuu ku magacaabo ra-iisul wasaare isagana wuxuu leeyahay 30 casho oo kale inuu ku magacaabo golihiisa wasiirada waa 60 casho waxaan ku magacaabay 15 casho oo tayda ah iyo 21 casho oo tiisa ah markaasay dadku waxay leeyihiin war maxaa qabanaysaan war ma hawlo socotaan marka waa dhab weeye waxaan ku jirnaa waqti urgent ah sense of urgency ku jirnaa waqti badan baa naga lumay waxaan rabnaa waqtigii lumay inaan dib u soo celino sidaas darteed ilaahay wuxuu noo guuleeyay inaan dadka aan xulanay aan ku xulanay anigu dad badan oo waxay jiray asxaab aan ahaa oo jeclaa laakiin ballanteeda hore waxay ahayd inaan ka shaqeeyo danta dalka iyo dadka qof kastoo siyaasi u yiraahdo warniyo ninkaan iga qabana aniga hay fiiriyo hal qof oo saaxiibaan ah meesha kuma jiro marka sidaas runtii waxaa noogu suurtowday inaan magacaawno dad wada hufan oo wada jaamiciyiina oo kulli khibrado wadana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu hawshooda u fududeeyo waxaa laga rabaa ma aha in la ansixiyo kaliya waxaa la rabaa dadkaas in lala xisaabtamo oo haddii ay shaqeyn waayaan mooshin yaa la odhan laakiin maxaan ku yidhaahdaa constructive criticism wax la yidhaahdo naloo soo gudboon yidhaahdo wasiirkaas dhalilahaas ku leeyahay waxaan ballan qaadaynaa wasiirkaas hadduu toosi waayo inuusan nala sii shaqayn maxaa yeelay annagu waxaan ku shaqaynaa danaha shacabka soomaaliyeed iyo danta guud yaan ku shaqaynaa ee qof gaar ah aan danihiisa u fulnayna ma jirto walaalayaal ilaahay amarkiis waxaan idin sheegayaa wax yaab maalintii aan magacaabay golaha wasiirada maalintii ku xigtay roobab baa bilowday oo weliba gobollada waqooyi ka bilowday maanta iyo shalay waxaa lii sheegaya meelo badan uu ka da-ay marka waxaa laga yaabaa golaha wasiiradu inay khayr la yimaadeen idinkana ducada loo badiya in ilaahay uu na qaboojiyo roob badan loo keeno si dhibka na haysta abaaraha ah uu nooga dulqaado iyo colaada weliba waxaan runtii rabaa inaan u mahadceliyo dowladda Kenya iyo madaxweynahooda iyo shacabkooda sida diiran oo wanaagsan oo runtii aniga iyo wafdigeena naloo soo dhaweeyey runtii waxaa meeshaas ka muuqata inay diyaar u yihiin in la furo gate cusub
oo ku dhisan mutual interest and equal footing. macnaheedu waxay tahay dad isxushmeeya runtiina diyaar u ah inay wada shaqeeyaan ku wada shaqaystaan iyagoo danaha dalkooda eegaya maslaxadda dalalkooda eegaya inaan isku soo dhaweyno maslaxadeena oo ay ka mid tahay inaan furno xiriirkii isweydaarsiga dhaqaalaha inaan furno. taasi waxay keentay madaxweynihii shalay aniga isaga inaan press conference sameynay uu ballan qaaday in uu furo diyaaradihii isaga gooshayay tooska maxaan ku rahdaa ay ahaan jirtay xamar iyo Nairobi in dib loo soo celiyo. waa ka xumahay dadka reer wajeer waxaa laga yaabaa xoogaa economic hardship inuu ku dhaco, laakiin runtii dadkii Soomaaliyeed waa rafaadeen maxaa yeelay waxay mareen agony bay mareen iyo dhib bay mareen inay soo maraan wajeer ayna maraan the same process ay maraan markay yimaadaan Nairobi. marka taas waxay fududeynaysaa isu socodka iyo ganacsiga labada dal. intaas waxaa dheer in aan isweydaarsano runtii aqoonta iyo tababarada iyo maxaan ku rahdaa iyo waxyaabo badan inaan isweydaarsano. sida la sheegay xuduudkii waa furnay oo dadku waa isku gooshayaa ganacsigu waa labada dhinacba waa saga gooshi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo. marka meeshaas runtii waxaa ka soo baxay oo aanan sii xoojin doonaa insha allah xiriirka labada wadan oo runtii ku dhisan saan sheegay maslaxadda labada dal oo xushmad leh. taasna waxaan aaminsanahay iskama imaanay waa hawl aad qabateen horay oo aad uga shaqayseen maxaa yeelay afkiisu wuxuu iga sheegay Soomaalida halka joogto inay yihiin dad fiican oo sharaf badan oo runtii dadkaani dhaqaalihiisa kor u qaaday oo dad shaqaysta ah ayuu ii sheegay. marka taasi macnaheedu waxay keentay inuu xushmeeyo dalkii aad ka timaadeen. waan uga mahad celinayaa majority leaderka Aadan Ducaale iyo raggiisana aad ay uga shaqeeyeen runtii hawshaan inay fusho oo hawshaan ma ahayn hawl iska dhacdeen, waxay hawl hore looga shaqeeyay. marka waa kaaga mahad celinaya ganacsatada Soomaaliyeed. waxaan leeyahay walaalayaalow dal aan dhaqaale lahayn ma shaqayn karo. anigu waxaan la imaanayaa ammaanadii inaan la tartamo dalka ugu hufan oo ugu fiican oo la yidhaahdo Denmark. yaan rabaa inaan la tartamo markay noqoto hufnaanta. meesha aan kaga jirno 176 wax naga hooseeya mare. marka waxaan isku dayayaa meel hore inaan keenno. si aan u keenno hadda waa inaan helno dhaqaale aan maamulno. ganacsada waxaan ka codsanayaa marka rugta ganacsiga halka nala jooga iyo ragga naga maqanba inay dawladda taageeraan oo awal haddii shaki ay ka qabeen wixii ay dhiibaan in meel kale la marsiinayo ballan baan kaga qaadayaa dhaqaalahaasi in sidii ay tahay in loo maamulo oo qof shakhsi ah uusan si xun ugu takrifan. laakiin de maxaan lagu xisaabtamayaa haddii aan waxba loo dhiiban. waxaan ka codsanayaa ganacsatadu inay u hormaraan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay canshuurta bixiyaan. dalkan budgetkiisu Aadan Ducaale ii sheegay wuxuu ii sheegay $100 bilyan oo dollar weyn sanadkii bisha dawladooda. meesha anagu ay ka tahay inaan sheego ma rabo $300 milyan oo dollar. marka waa dhaqaale runtii lagu maamulo hal iskuul. soo ma garan yaan rabnaa waddan inaan ku maamulno. macnaheedu ma aha dhaqaale la'aan inay hayso. dadkii baan bixinayna canshuurtii. dadku haddii canshuurta bixiyaan oo dawladooda kalsooni siiyaan oo ay aaminaan waxaan aaminsanahay dhaqaalaheen inuu gaari karo 20 bilyan iyo ka badan. 20kaas bilyan oo aan la xalaynin way ka baraka badan tahay 100 bilyan. marka saan aaminsanahay. marka ganacsatada waxaan ku boorinayaa ilaahay dhaqaalaha idin badiyo. waxa haystaan waxa ilaahay ugu daro. laakiin in dawladdiina aad maxaan ku rahdaa wixii ay ka mudan tahay oo canshuura aad siisaan. waxaan kusoo gabagabeynayaa Soomaaliya. marka dalkeenu waa dal kheyraad badan. waxaad arkaysaan oo loogu dal wareegayo macna darri maaha. wax badan yaa Soomaaliya yaalla. Soomaaliya waa dal qani ah. hadday noqoto oil and gas, hadday noqoto mining, hadday noqoto waa wax dhulka hoostiisa ku jira oo haddii aan caqli la imaanno
dowladda dadka Soomaaliya maanaya oo investment ku sameynayaan waa inay helaan dowlad aamin ah ogaada dowlad tuugaha cid wax ku darsanaysa ma laha waxyaabaha ugu horeeya oo adduunka ku soo jeedaya investment waxa ka mid ah dowladdan corrupt miya corruption kan waxa keenaya qof iimaan la oo aan patient lahayn oo aan sugi karin waddanka horta inuu qani noqdo oo raadinaya kad wax la yiraahdo iyo commission fee qofku markuu arka marka la yiraahdo kad keen wuxuu leeyahay meesha haddaad billion geliso hadhow maxaa lagu weydiin doonaa war waxaan waa tuugay waxba iska gelin meesha laakiin markuu arko in fakarka uu aaminsan yahay dowladihiisa ku shaqeeyaan uu ka dhex arko wuxuu leeyahay dalkaani waa dal aad aamini karto systemka hadda aan bilownayna oo dimuqraadiyadda ahna waa haysanaa oo the rule of law ah oo la isdacwaysan karo adduunka la isku dacwaysan karo marka haddaan la imaano ammaano iyo dimuqraadiyad oo clear ah uusan qofna disaan gareenay election si ugu soo noqon lahaa midda kale aan sheegay waxay tahay anuma disaan gareenay si aan ku soo noqon lahaa maxaa yeelay 4 sano noolaan doonay kala ma aqaano waxaan soo ogahay maanta inaan shaqeyn karo maanta shaqadan qabto haddii aan ku soo noqon karo waa alxamdulillah haddaan ku soo noqon waayo qof uga fiican la helana waa ka fiican laakiin qof disaan gareen kara election ma jiro waxaan ka shaqeynaynaa dowladdeenu inaan maanta shaqada qabanno noo taalla berri ma ah berri waa balaan gareynaynaa waa qorsheynaynaa laakiin shaqada maanta aan qabanayna marka shaqadaas waxay noo liid garaynaysaa marka dadku inayna aaminaan caalamkuna ay wax nagu darsadaan sidaas darteed caalamku markay investment keenayaan muhiimku waxay tahay inay kaa dhexarkayaan inaad tahay aamin dowlad clean ah oo transparency leh oo accountability-geedu meesha ugu sarreysa u yahay dimuqraadiyad iyo sharcina ku dhisan labadaasna dee waa labadii aan u dhaaranay oo aan dhaarta u marnay oo ay tahay khasab inaan fulino dalkeenu waa qani waxaan idiin sheegayaa in ummad Soomaaliyeed ee gaajo u dhimato ama cunto dibadda looga keeno runtii waa dadnimo xumana haysata waana sharaf xumo iyo magac xumo runtii aan leenahay wey Soomaaliya waxay leedahay markaan idiin sheego 8 milyan oo hektar oo aan u baahnayn fertilization best aan u baahnayn wax maxaan ku yiraahdaa dhulku waa fertile way uma baahna in sun iyo bacrimin uma baahna bacrimin uma baahna marka waxaan ka beernaa oo kaliya wax ka yar 100 hektar 8 milyan diyaar iyo noota oo labadooda dhexdooda ah oo diyaar oo haddii mirihii lagu tuuro horey ka soo baxayaan waxaan leenahay bad aad u dheer iyo sida shalay uu sheegay maxaan ku raahdaa qof baa sheegay madaxweyne ku-xigeenka yaa wuxuu lahaa waa meesha kaliya badda Soomaaliyeed ee Malawi uu doqonimo ku dhinto meel kale adduunka Malawi doqonimo kuma dhinto dadkeena gaajo u la'aanaya marka waxaan rabaa Malawigaas intuu doqonimo u dhiman inaan adduunka u suuq geeyo waxaan leenahay xoolo fara badan xoolo fara badan intaas marka la dhaafo haddaan caqli la imaano dalkeena